daawada kusoo dhawow janalka Masrax Official aad uga barateen maadada chemistry-ga hore ugu bixi jiray haatanna si fiican uga baxa laakiin waxaan ku soo kordhinay maadada biology-ga ee fasalka saddexaad ee dugsiga sare ama form 3-ga oo ay codsadeen ardooyin dhowr ah laakiin waxaan rajaynayaa dhammaan ardada Soomaaliyeed maadaama isku manhaj ay yihiin inay ka wada faa'iidaystaan maadaama buugga saddexaad ee dugsiga sare uu ka buuxo cilmi fara badan sidoo kalena waxaan rajaynaynaa haddii aan waqti u helno inaan form 1-ka iyo form 2-ga intaba aan kusoo darno sidoo kale form 4-ka laakiin fasalada inta badan aan rajaynayno inaan kusoo darno form 1 ilaa form 4 inay noqdaan ayay rajadu tahay balse daawada waxaan kaa codsanaynaa haddii aad janalka ku cusub tahay subscribe-ta noo saar sidoo kale like-tana nagu dhiirigeliya gomboleelkana furo markaa subscribe-ta saar si casharada xiga ay kugu soo dhacaan daawade casharka wuxuu ka bilaabanayaa chapterka koowaad wuxuuna arki doonaa wax la yiraahdo chemical components of the cell chapter 1 wuxuu ka hadli doonaa wax la yiraahdo chemical components of the cell waxyaabaha kiimikeed oo cellka uu ka kooban yahay haddii aan skimbro waa Cabdullaahi Cawli Colombo wanagala soo hadlaya janalka Masraxa Official waxaan ka hadli doonaa waa ciwaanka la yiraahdo chemical components of the cell chemical components of the cell waxyaabaha kiimikeed oo cellku ka kooban yahay ayaan rabnaa si fiican uga hadalno many chemical reactions falgala kiimikeed oo fara badan oo ayaa waxay ka dhacaan in the cells unugyada of living organisms ee nooleyaasha nool markaad aragtid falgala kiimikeed fara badan ayaa waxay ka dhacaan unugyada nooleyaasha nool haddaad aragtid waxaa kugu soo dhacaya laba shay labada kugu soo dhacayda waxay noqdaa living organism-ka waa plants and animals waa xayawaanaadka iyo dhirta soo daraaddeed cells unugyada are able waxay awood u leeyihiin to perform inay fuliyaan all their functions dhammaan shaqooyinkooda oo dhan inay fuliyaan unugyada and produce ay soo saaraan the substance walax and structures qaab dhismeed they need ay u baahan yihiin some these substances waxyaabahaas oo ay soo saarayaan oona ay qaab dhismeedaas ay u baahan yihiin exist waxay u jiraan in the form qaab of simple compounds qaab oo simple compound ay u jiraan waxay u jiraan qaab oo ah simple compound way u jiri karaan sida like water waxaa kamid ah biyaha kamid ah and monosaccharides sokorta la yiraahdo monosaccharideka kamid ah and others kuwa kalena waxaa complex waay maadaama complex ay yihiin like waxaa kamid ah qaarkaas waxyaabaha kamid ah proteins kamid ah waxaa kamid ah wax la yiraahdo nucleic acid ayaa kamid ah waxaa kamid ah wax la yiraahdo proteinska iyo wax la yiraahdo nucleic acid waxaan rabnaa inaan ka hadalno wax la yiraahdo chemical structure of the cell qaab dhismeedka kiimikeed ee uu leeyahay cellka ayaan rabnaa inaan ka hadalno in the nature dabiici ahaan there are waxaa jira about 92 elements 92 curyo ayaa jirta 20% ilaa 25% of these elements ee curyaashan 20% ilaa 25% curyaashani are essential waxay laga maarmaan u yihiin for the healthy caafimaadka of the organism ee noolaha nooluhu wuxuu noqon karaa dhirna wuu noqon karaa xayawaanana wuu noqon karaa hadba nooca uu noqdo ay ku xiran tahay marka waxaa leenahay the essential elements curyaasha laga maarmaanka ah similar waxaa la mid ah in all living organisms dhammaan nooleyaasha nool oo dhan ayaa la mid ah waxaa jira essential elements curyaal laga maarmaan ah oo essential elements are similar waxaa la mid in all living organisms dhammaan nooleyaasha nool oo dhan ayaa la mid ah but laakiin living organisms dhammaan nooleyaasha nool essential elements jira curyaal laga maarmaan ah taasna waxaa la mid ah noolihiina waa laga maarmaan maadaama essential elementskan sida si la mid ah yaa u baahan living organismska ayaa u baahan nooleyaasha nool but laakiin living organisms nooleyaasha nool are different way ku kala duwan yihiin nooleyaasha nool waxay ku kala duwan yihiin in their requirement waxyaabahay u baahan yihiin for these elements curyaasha waxyaabahay u baahan yihiin way ku kala duwan yihiin xagga marka loo fiiriyo living organismska
are different with their requirement waxyaabahay u baahan yihiin for this elements curyashan way ku kala duwan yihiin tusaale ahaan oo kale the human being bini aadamka oo kale wuxuu u baahan yahay 25 curya ayuu u baahan yahay while halka plants oo kale dhirta oo kale ay u baahan tahay 17 elements 17 curya dhahma 17 curya u baahan tahay dhirtu so marka halkaas waxa kaaga cad nooleyaasha nool waxay ku kala duwan yihiin curyaasha u baahan yihiin halka bini aadamka 25 curya oo u baahan yahay dhirtuna waxay u baahan tahay waxa la yiraahdo 17 elements okay waxaan rabnaa inaan ka hadalno there are waxaa jira 4 elements afar curya that constitute kaasoo ka kooban taas ay ka kooban tahay 96 boqolkiiba 96 culayska curyaasha tusaale ahaan oo kale marka loo fiiriyo meeshaan oo kale haddaan ka hadalno marka noolaha national laga hadla living organisms plants ama ha noqdaan ama animals ha noqdaan waxaa jira boqolkiiba culayska jirkooda marka la fiiriyo noolayaashaas nool boqolkiiba 96 marka la fiiriyo afar curya ku badan waxaa ku badan afar curya these are afarta curya ayaa waxay kala yihiin oxygen carbon hydrogen and nitrogen afartaas curya ayaa ku badan living organism waa boqolkiiba 96 culayska jirkooda way ku badan yihiin noolaha ayaa marka la fiiriyo ama dhirta hala aado tusaale dhirtu waxay u baahan tahay oxygen dhirtu waxay soo macnaha oxygen ay soo diisaa oxygenkaas wasaqaani soo saartaa maxay qaadataa carbon dioxide annaga haddaan nahay carbon dioxide wasaqaani soo saara oxygenna waxaan u qaadanaa caafimaad ahaan okay however si kastaba ahaatee calcium phosphorus and potassium and sulfur constitute waxay ka kooban yihiin the remaining macnaha remaining boqolkiiba 4 culeysyada kale ee soo haray ee noolaha ay ku jiraan tusaalaha calciumta kale adii jirkaada boqolkiiba 4 ay ka noqon kartaa laakiin oxygenta boqolkiiba 96 ka noqonay oxygenta carbonta hydrogenta nitrogenta mid kasta marka jirkaaga la fiiriyo percentage-kaas ka yeelan mass of the living organisms culayska noolayaasha nool the living cells wax la yiraahdo inaan ka hadalno living cells maxaa waa the living cells waa unugyada nool the living cells unugyada nool contains waxa ku jira two types laba nooc of compounds ee isku dhisya labadaas nooc ayaa waxa la yiraahdaa cellka ama unugga nool gudihiisa waxa ku jira laba xabo mid waxa la yiraahdaa inorganic compounds ayaa la yiraahdaa inorganic compounds ayaa la dhahaa midna waxa la dhahaa organic compounds midkan waa living kana wuxuu tagi doonaa living okay waa wada arki doonaa hadii la yiraahdo intaanan ka gudbin meeshan hadda aan taaganahay waxaan taaganahay waxa la yiraahdo elemental composition of the human body tusaale ahaan oo kale isku jirka curyaha ee jirka bini'aadamka marka la rabo in laga hadlo jirka bini'aadamka marka la joogo bini'aadamka marka la fiiriyo proteinka boqolkiiba wuxuu ka yahay 16 boqolkiiba 62 ayaa biyo ah boqolkiiba 6 waa minerals boqolkiiba 1 waa carbohydrate boqolkiiba 16 waa fat waa jirka bini'aadamka marka laga hadlo tusaale ahaan oo kale waxaa sameysaa 16 iyo 16 isku dar tira ahaan waxaa soo baxaysaa 32 waxaad ku dartaa hal ku dar 33 waxaa ku dartaa 6 ku dar 39 adiga boqolkiiba hal okay intaas maxana waxa waa boqolkiiba boqol jirkaada protein meeqa u baahan yahay water jirkaada meeqa laga rabaa mineralska meeqa laga rabaa fatska meeqa laga carbohydrate maxaa laga rabaa okay waa arki doonaa hadii intaas laga rabo jirkeena inta badan Soomaalidu waxa u badan carbohydrate oo jirkooda laga rabo boqolkiiba hal ayaa aad ugu badan sababta uu keentay in isbitaalada ay u bataan su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay intaan casharkan aan ku guda jiro oo meeshan aan taaganahay jirka bini'aadamka markaan ka hadlayo oxygen jirka bini'aadamka meeqay ka tahay waxay ka tahay
65 boqolkiiba. Carbon meeqay ka tahay 18. Hydrogen maxay ka tahay 9.5. Nitrogen maxay ka tahay 3.2. Calcium maxay ka tahay 1.5. Phosphorus maxay ka tahay 1.2. calaamadihii laga soo gaabeynaya waa kuwaas. waxaa ku soo calcium, potassium oo kale waa eber dhibic 4 way ku yar tahay jirka bini'aadamka marka la fiiriyo. potassiumta sulfurta waa eber dhibic 2 waa rar xoogaa aad ay ugu yar tahay. sodiumta waa ku yar tahay. chloriinta oo kale 0.2. magnesiumta 0.1. othersna waxay ka yar yihiin waxa la yiraahdo intaas. intaas hadda aan meesha ku qorano way kasii yar yihiin. Okay, marka daawadaha qiimiga badan waxaan kaa codsanaynaa casharka haddii aad ka heshay inaad subscribe asaaratid, like-tana aad nagu dhiirigelisid, gambaleelkana aad furatid si casharada ku xiga ay kugu soo dhacaan. daawadaha qiimiga badanow weli waxaan ku guda jirnaa, waxaan soo baranay human body, jirka bini'aadamka ayaan soo baranay curyaashaas intay ka yihiin. maanta haddana waxaan rabnaa inaan fahanno oxygen marka la fiiriyo earth crust dhulka boqolkiiba meeqay ka tahay. dhulka marka la joogo waxay ka tahay oxygen waa 46.6. 46.6 waa boqolkiiba. tusaale ahaan oo kale otherskana waa 1.4. magnesium 2.1. potassium 2.6. sodium 2.8. calcium 3.6 boqolkiiba. iron 5. aluminium 8.1. silicon iyo waxaa ugu badan waxa la yiraahdo intaana ugu badan. inta kale maxaa waaye aad ay u yar yihiin. maxaa la su'aal haddii la weydiiyo compare ku samee waa inaad fiiri kartaa. Okay, waxaa meeshaan nagu qoran su-aasha koowaad waxaa laga rabaa marka la fiiriyo waa maxay boqolleyda culayska oxygen iyo carbon iyo hydrogen iyo nitrogen, phosphorus iyo sulfur dhulka intay ka yihiin laga rabaa. jirka bini'aadamka intay ka yihiin laga rabaa. what do you observe maxaad ku gashay. tusaale ahaan kale buuggaada la soo bax. oxygen dhulka meeqay ka tahay fiiri artiga. human body-gana ka fiiri. carbonna fiiri. human body-gana fiiri. earth crust-gana fiiri. buuggaada ku yaalaa. okay, su-aasha igu xigta waxaa waaye which elements curyaashee have higher percentage in the nature and in the human body. marka loo fiiriyo dabiici ahaan ama jirka bini'aadamka curyaasha ugu badan boqolle ahaan marka loo xisaabiyo waa laga rabaa. haddii aad sheegtidna waxaa sii raacsan state waxaa sheegtaa some compounds that contain these elements in their structure. waxaa sheegtaa isku dhisyada qaar way ku jiraan curyaashan qaab dhismeedadooda waa laga rabaa. su-aasha saddexaad many chemical substances walxo fara badan oo kiimikeed enter the structure of the cell waxay galaan qaab dhismeedka unuga. European fikradaada waxaa lagu dhahaa what's the importance of these substances waa maxay walxaha muhiimadooda. why have you selected these substances sababtee doorato walxahan adaa laga rabaa inaad soo tacbiirisid. su-aasha ugu xigta waxaa lagu dhahaa there are other elements waxaa jira curyaas kale ayaa jira that exist in a fewer percentage kuwaasoo u jira boqoleydoodu aad ay u yar tahay. siege waxaa raadidaa these elements curyaashaas raadi. curyaashaas boqolkiiba marka la fiiriyo ay aad u yar yihiin raadi. haddii buugga chemistry aad haysatid waad arkaysaa midka boqolkiiba boqoleyd ahaan midka ugu yar ay soo qaadanaysaa. and state waxaa sheegtaa the percentage abundance of each in the cells of living organisms. waxaana sheegtaa boqolkiiba inta uu ka yahay unugyada nooleyaasha nool dhinaca cadidada laga rabaa. tusaale ahaan oo kale waxaa laga rabaa human body xaggiisa ina aadid artina ina aadid ina intaas ka fiirida excellency ah. su-aasha igu xigta ayaa waxay noqonaysaa wax la yiraahdo inorganic compounds. inorganic compounds waxaa leenahay inorganic compounds haddii lagu yiraahdo maxaa laga wadaa maxaa leedahay. inorganic compounds waxaa leenahay are simple structures
waa qaab dhismeed fudud ayaan leenahay and obtained by the waxaana hela by the organism nooleyaal waxaan leenahay waa simple structure qaab dhismeed fudud inorganic compoundska maadaama and obtained waa la helaa by the organism nooluhu ayaa hela arrintan waa simple structure waxaana hela noolaha ayaa hela nool true wuxuuna u maraa waxa la yirahdo nutrition nafaqa ahaan true muxuu maraa nutrition nafaqa ahaan the main ones are kuwooda ugu weyn maxaa waaye water waa biyaha and mineral salts iyo macdanta cusbada ah okay water maxaa lagu qeexi karaa haddii lacala lagu weydiiyo maxaad uga jawaabi lahayd waxaan leenahay water is the only substance oo walaxda keliya ah in nature ee dabiici ahaanta in three physical states saddex xaalad ayay martaa it is essential component waa waxay ka kooban tahay walaxa laga maarmaan ah idas oo water biyo waa laga maarmaan in the composition isku jirka of living cells and composition isku jirka of living cells unugyada nool cellskooda ku jiraan it is proportion in living cells varies between waxay ku kala duwan yihiin nadayaasha nool oo jirkeeda ku jira way ku kala duwan yihiin tusaalahaan kale 5% ilaa 95% marka loo fiiriyo kulligood depending on the waxayna ku xiran tahay on the living organism noolaha nool macnaha in 5% oo yeesho ama uu ka bato ama uu noqdo 60% waxa la yiraahdo water oo biyo jirkiisa ay noqdaan depending on the living organism waxay ku xiran tahay hadba noolaha nool iyo sida uu nool yahay iyo noloshiisa sida uu soo guto ayay ku xiran tahay su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay some of the properties and functions in the body qaar ka mid a astaamaha iyo shaqooyinka jirka ayaan rabnaa inaan ka hadalno qaar ka mid a astaamaha biyuhu ay leeyihiin iyo shaqooyinka biyuhu ay u qabtaan jirka ayaan rabnaa inaan ka hadalno biyuhu waxaa leenahay is a good solvent waa dareere fiican for the materials walxaha dareere fiican ayay u yihiin qodobka kale idan waxay u taagan tahay water macnaha it works waxay ka shaqey karaan to transfer materials in la dhoofiyo walxaha ama la qaado walaxda bidiin inta u dhexeeya inside gudaha and outside the cell cellka gudihiisa iyo cellka banaankiisaba waxaa la rabaa in la qaado walxaha which taasoo helbis ka caawinaysa the cell unuga to get this needs cellka waxay u baahan yahay inuu helo and get rid of this waste cellkan inuu iska saaro waxyaabaha wasaqda ah ay ka caawinaysaa it is a major factor waa major factor waa factor aad u weyn in the flexibility and elasticity of the body jirka marka loo fiiriyo qodobka wixii specific heat wuxuu leeyahay specific heat kuleyl u gaar ah ayuu leeyahay kuleylkaas which gives the ability kuleylkaas waxaa awood siinaya to the absorb heat usoo kuleyl from the biological reactions falgalada biolojiyeed ee ka dhacaya in the cell unuga and this helbitan waxay ka caawinaysaa to regulate in la joogteeyo the body temperature heerkulka jirka waxaan rabnaa waxa la yiraahdo minerals inaan ka hadalno mineralska marka laga hadlayo waa very important thing in life marka la joogo nolosha bini'aadamka marka la joogo 100% aad ayay muhiim u tahay waxa la yiraahdo minerals waxaan isla ognahay mineralska in laga helo hilibka waa laga heli karaa cunooyinka xoogta laga helaa malayga laga helaa qudaarta waa laga heli karaa kuwa miraha waa laga heli karaa lowska waa laga helaa waxyaabahaas oo dhan waxaa laga helaa waxa la yiraahdo minerals waxaa leenahay minerals are inorganic substance oo waxa inorganic substance ah waa noole found laga helo in the soil carrada and rocks iyo dhagaxaanta maadooyinkan waa waxyaabo laga helo carrada iyo dhagaxaanta oo hadda waxyaabahan ku sheegay carrada marka laga helayo waa la abuura halkaas ayay ka imaanaysaa waxaa leenahay qodobkii ugu xiga waxaan leenahay it is one of the most important nutrients waa mid ka mid ah nafaqooyinka ugu muhiimsan that the body taasoo jirka needs u baahan in order to survive u noolaado and perform u fuliyo daily functions shaqooyinka dailyga inuu fuliyo the mineral salts cusbada ama macdanta play waxay ka ciyaartaa major role door muhiim ah in the living organisms nooleyaasha nool waxay ka ciyaaraan door macnaha waxa waaye
macdanta waxay ka ciyaartaa door muhiim ah noolaha nool. doorkay ka ciyaarto waxa la yidhaha mineralska waxaa ka mid ah oo dadka caafimaadkooda ay ku xiran tahay 6dan qodob. Si fiican u baro 6dan qodob. 6dan qodob mid mid ayaan rabnaa inaan u galno. qodobka koowaad oo ah ayaan rabnaa the mineral salts play waxay ka ciyaaraan major role in the living organisms noolayaasha nool. qodobkan oo ah the structural infection qaab dhismeedka gudaha ka shaqeynaya the mineral salts waxyaabaha mineral saltska ah oo enter the structure of the cell. tusaalaanka lowsa cuntay lowskii mineralsa ku jira kalluuna cuntay waxyaabahaas oo dhan markaad adiga cunto structure of the cell qaab dhismeedka unuga galayaan tissue noolayaasha. There waxaa jira some minerals macdanta qaar found laga helo in the cells unugyada that exist kuwaasoo u jira in a few percentage waxay leeyihiin boqolleyar ayay leeyihiin boqolkiiba marka loo fiiriyo aad u yar yihiin. waxaa ka mid ah zinc and magnesium ayaa ka mid ah. qodobka igu xigo waxa waa production of energy in lasoo saaro waxa la yidhaha energy. production of energy waa in lasoo saaro energy. phosphate maadada la yiraahdo are minerals waa macdinta aad participate ka qayb qaadanaysa in energy production wax soo saarka energy-ga like sida in the ATP molecules found laga helo in the cells noolayaasha. waxaa leenahay minerals oo macdinta play waxay ciyaaraan a role door ayay ka ciyaaraan in the functioning in ay shaqeeyaan of the nervous system and the muscular system inay shaqeeyaan. habdhiska murqaha iyo habdhiska dareenwadka iyo habdhiska murqaha inay shaqeeyaan door muhiim ah ka ciyaaraan mineralska. tusaalahaan oo kale mineralska waxaan ognahay waxaa ku jirta maado la yiraahdo iron, maado la yiraahdo calcium, maado la yiraahdo phosphorus. saddexdaas maado qofka haddii dhiig la-aan ku dhacdo waxaa la siiyaa wax la yiraahdo minerals oo la yiraahdo iron. waxaan leenahay potassium, sodium, calcium, chlorine play waxay ka ciyaaraan important role door muhiim ah in the integration of the functions inay isdhexgalaan shaqooyinka the nervouska habdhiska dareenwadka and muscular systems iyo habdhiska murqaha. qodobka kaloo iyo afraad wuxuu noqon doonaa maintaining in la joogteeyo the healthy caafimaadka and the safety of the immune system. macnaha caafimaadka in la joogteeyo oo caafimaadka laga warqabo ayay keenaysaa wax la yiraahdo mineral saltiga and safety inay ammaan noqoto of the immune system difaaca jirka. zinka maadada lele is a mineral needed waa maadada zinki is a mineral needed macdan loo baahan yahay yaa u baahan by the body jirka muxuu uga baahan yahay in a very small quantity aad yar u baahan yahay uma baahna wax fara badan wuxuusan u baahnayn wax fara badan uma baahna very small quantity u baahan wax aad yar u baahan yahay. It is necessary waxaa laga maarmaan ah for the boosting it is necessary waxaa laga maarmaan ah for the boosting it is necessary waxaa laga maarmaan ah for the boosting inay dhiirigelido waxaa laga maarmaan ah mineralsku inay dhiirigeliyaan of the immune system habdhiska difaaca healing of injuries dhaawacii inuu bogsado and replacement in la bedelo of worn out cells nudayaal dhintay waxaa leenahay maintaining waa in la joogtiyaa the balance of osmotic pressure of cells and regulating the pH of the body fluids. waa in la joogteeyaa isku dheelitirka cadaadiska unugyada ee siimowga and regulating in la joogteeyo the pH of the body fluids dareeraha jirka.